ugu horeyn soomka bishan shacbaan la soomayo nabi maxamed uu soomi jiray sallallahu alayhi wasallam isagoo tusaale inoogu ah waayo waxa la wixii cibaado ah waa tawqiif waxa looga jeedaa rasuulka laga dayda sallallahu alayhi wasallam sida inuu uga maqalay iyo muuqaalka inuu ka aragnay xadiidkaas saxiixaynka ku sugan bukhari iyo muslim min xadiid aisha allah ka raali noqday waxay leedahay لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان وكان يصوم كله نبي وحو صوم بالضابش شعبان مركا رمضان لقطه رواية قاركود وحي لما أنت وذا صومي جري قاركود وحي لا ذا صومي جري إلا قليلا مركا كله ذا علماء وحي كف السرين كا قليل كشيء معني سوى حوي انت بدن بو صومي جري أما السنة لها قاركود نواب وذا صومي جري سندها قاركودنا قيب كميدا بو سوامي أسامة بن زيد وحديث كاللباده يساقنا الرسول كويدي صلى الله عليه وسلم ولا يصوم كأبضان أنا أركر رمضان مركا لقته وبيشن شعبان حي كل عضي نبي كويدي عليه الصلاة والسلام مركا الرسول صلى الله عليه وسلم وحر بيشن ضدك عبادة قفلتك قدعة وحق هران الشعب رجب أي بديان حق ضمن رمضان لبضان سيود حيسا بركة عبادة ذي دتك قاركود كقابصدان مد الله بعد عمل كلا كوريا لا بشان إلى رب العالمين إله أضمها الرب جواب الله كوريا لا وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أنا أقول واحد تعالى عمل كيجي وربحنت إذا إن إلهي ملائكة أي جارسيان أنا قا صوما بركة حديث labada waxay naga filayn qaar badan oo ku soo aroray ficilkii nabiga iyo fadliga uu sheegayba arinta labaad waa xigmadaha ku jira in shacbaan la soomo ama nabigu soomi jiray sallallahu alayhi wasallam afar xigmadood bay culimadu sheegaan mid waa taa xadiidka ku cad oo nabigu wuxuu waxaan iswaafajinayaa waqtiga amalkayga ilaahay loo gudbinayo ila mar walba adooma kala la socdo malaayiga oo inta wixii naga qorayo shar iyo khayr oo hawshooduba inta tahay oo inagu intaynu shaqaysanayno iyaguna way naga shaqaynayaan marka amalkayga ilaahay loo gudbinaya waqtigaas isaga oo aan soomanahay maadaam la kor yeelayo bishan amalka marka amalkii mar waxa la gudbinayaa 24 saacadood marna waxa la gudbinayaa isniintii khamiista marna waxa la gudbinayaa sanadkii mar waxa soo warbixinaaba inaga tegaya oo ilaahay loo qaadayo la horgeynaya subhanahu wa ta'ala xigmadda labaad ku jirta waxa weeye tawdi'atan wa tadriiban li ramadaan bishi ramadaan baa loo sii tababaranaya amalku markuu kugu cusub yahay markuu caado ku yahay isku mid maaha marka adigoo la soo qabsaday bishi ramadaan soomkii ayaa la galaya oo shacbaan in badan soo soomayay wax sahlan buu ku noqonaya dadka ka baqaya ama ka warwarsan noqon mays uu ku dhib yaraanaya arinta saddexaad waxa laga yaabaa bay culimadu leeyihiin inuu nabigu safaray wax ku soo beegmo sunnayaashii caadiga ah oo khamiisaha iyo isniinuhu intay ka tagaan ayuu ka daba tagayaa soo qalaynaya bishan shacbaan intaan ramadaan soo gaadhin xigmadda afraad waxay noqon kartaa bay leeyihiin xaasaskiisa sida xadiidka Aisha soo socda ku arki doono way soo qalayn jireen wixii dhaafay xaydka intii ay lahaayeen aan cibaadadani waajibka ku ahayn ayay shacbaan ka soo gaarsiin jireen markaas ay dumarka cibaadadaasi ugu dhib yaraato isaguna uu la soo qalayn jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam xigmadaha afarta ah waxa ay kamid yihiin waxyaabuhu nabigu u badin jiray bishan shacbaan soomka la soomayo arinta saddexaad waxa weeye sawmu surari min al ayyam fi shacbaan waxa labaadoo sunna in la soomo bisha shacbaan ayaamaha surarka loo yaqaan waa ayaamaha cadcad culimada qaarkood waxay leeyihiin waa ayaamaha dhexe baan leeyahay marka waxa laga yaabaa in looga jeedo kuwa dhexe oo ayaamul biidka ah marka ayaamul biidka sida xadiidkuna uu dhiiri gelinay ama ayaamaha dhexeba Imraan ibn Husayn ayuu nabigu ku yiri alayhi salatu wassalaam hal sumta min surari hada ash-shahr shay'an qala la bishan ayaamihi dhexe ma soonta meemaan soomin buu marka nabigu wuxuu ku yiri alayhi salatu wassalaam fa idha afdarta fa sum yawmayn bisha ramadaan marka dambaysa laba maalmood soon oo aad ku kabayso soomkii ku dhaafay bisha shacbaan dhexdeedii inaad soo soonto
marka xagga hore iyo xagga dambe lagu fasiray laakiin surarku waa xagga dhaxay u badantay marka qofkii awalkii buu ka soomay aakhirkiina uu ka soomay dhexdana uu ka soomay xasba istidaaca sida uu kolba u karo arinta afraad acmaasha ah ee habboon bishan dhexdeeda waxa weeye qadaa رمضان أو ما فات من رمضان أو الصيام أو الصوم الواجب على العبد dad badan baa waxa lagu leeyahay soom si kastaba ha kaga tago ama cudur daar ha lahaado markuu ka tagay ama yuu lahaan marka qofka muslimka ah wuxuu isku dayayaa intaan bisha Ramadaan soo galin waxa la wixii qala lagu lahaa inuu ka soo gaarsiyo dumarkii uurka lahaa kuwii jaqsiinayay qofkii bukaanka kii musaafirka waxa la wixii soom kal hore ka tagay lagu lahaa qofku waa inuu arkaa fursadan intaan kii faralka soo gaarin ila waqtiga Ramadaan waxba lama qaleeyo waa cibaada mudayiqa waxaan Ramadaan ahayn ma qaadi karto hadii ay soomkaasi uu daba maro Ramadaanna culimada qayb kamid ah qaba qofku inuu ku tacadiyo raashin uu raacinayo soomka saadaradeed in laga gaarsiiyo qalihii waxa la mid ah qalihii kafaara gudka waxa la mid ah qalihii nadarka waa soomkii waajibka ahaa oo dhan in dumarkana lagu dhiiri geliyo rag iyo dumarba oo laga gaarsiiyo qofkii mar hadii uu awoodi karayo oo soobi karayo arinta shanaad waxa weeye annahyu an taqaddum ramadaan biyawmin bisawmi yawmin aw yawmayn ahkaamtiisa waxa kamida inaanay banaanayn ramadaan hal maalin ama laba cisho in laga la horeeyo labada cisho ku soo xiga ramadaan ama maalinka ku soo xiga ramadaan inaan la soomin ee ayaamu shakiga loo yaqaan maalmaha shakiga ونهي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيحها لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم والنبي عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان ما نصوم كي أمل بس صوم كوثها كله الريننا قف روسو صومي كريم ويعني حل ديدين قف كينو إلى هذا احتياط بان صنيليا والدلاليا مر هدي لقوش كيسين هاي عاوة ما شعبان با مسوى رمضان سيا وحبابا إيه دافين با هو سوميا رمضانين وأنا سوميا تاسود يدي رسولك صلى الله عليه وسلم لكن قفك صوم كو صوت احنا يسقوا ولد ما ينكره إلى مالك أيام شكك يسقى لو مديدين إلا وما سوميا رمضان ها وحو سوميا شعبان وصو سوميجري ولماذا قيب كم يدي وحي إليهين وحيسكفي عن استغفارتين وبضيق قفك دعاء ما دام النوارين تلحاد ما دام النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ليلة النصف من شعبان هذين كبشن شعبان أي كلا بركة تاي يو إلى هاي الضوامها سوية جية رواية كقاركودنا وحلين وسودة جية فيغفر لجميع خلقه الضوامها دم إلى هاي الدم باللافية إلا لمشرك أو مشاح قف قال إلى هاي وملافية قفك شحناغا من عيب سيها يا عداود يا علاد ولا له مسلم كاي وشرتنا يسجنا ومدام باللافية marka arintaas waxay muhiim tahay oo la inuu baraarujinayaa inaynu iscafino maadaama ilaahay cafis ka doonayna subhanahu wa ta'ala cafiska adoomaha inaynu badino si aynu inaguna cafiska ilaahay u helo oo aan ilaahay nooga riibin liiska dadka la cafiyayo istighfaartiina waa loo dambi dhaafayaa dadka iyo ducadiina aynu habeenkaas u kordhino waxa toddobaad oo aynu haysanaa oo baraarujinaynaa habeen kaasoo qura fursad ma aha waxa bifadli illaahi tacaala aynu haysanaa habeen walba fursadan laakiin inta ka faa'iideysataa dadka yar nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay xadiidkii saxiixa ah ilaahay inuu soo degayo habeen walba qaybta dambe adoomuhu la hadlaya hal min mustaghfirin fa aghfir lah ma jira mid dambi dhaaf weydiisanaya oo dhaaf hal min daa'in fa astajiba lah ما جرى مد عيسانيا وكأقبلا هل من سائل فأعطيه أرمها سؤالها أضمها ويدينيا مدا بدافع ويدي سنيا يا مد عطس سوق قديميا يا مد عيسانيا مركا أضمك كوبك ما وقت قاس إلى هاي أضمها والله الله يو وحي صرايب الله أقبليا وأنا فرصتها بين والباء وأن كوبنين كلي شعبان مركا تانين إنه كفى إذا السنة دي بي مهم تايم وأنا وقت رنتي قفلت ودتك أي كوب بلنتي كي هبين كي سوتش هذا ساعة هذا دم وصيحنايا هي قال أنا واحد لقيا بهرداد وين لا سير دارات مركا ثلث الليل الأخير ثلث كصدح ميلاده لبضة وحي كتم بيلا صلاة الصبح كان إسكاين لقى فايدة استوى قفك هرداد أنتو كسوق على صلاة الصبح كهر
arrimaha ilaahay addoonka uu weydiinaya uu ka jawaabo ka faa'iidaysto horu socodkiisa iyo faa'iidadiisa qayb weyn ka tahay arinta sideedaad aynu baraarujin lahay waxa weeye inaha acmaasha la soo sheegay wixii dhaafsan waa ghayru mashruuc cibaadadu ma laha wax la yiraahdo isqancin iyo waxa iska wanaagsan iyo miyaanu khayr ahayn islaamku waxa uu inoo jideeyay cibaadadu inay tahay saa horaba aynu ugu bilownay wax rasuulkeena laga dayanayo daliil ku soo arooray man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay diinteenna waa dhammaystiran tahay cidii wax ku soo biiriso waa lagu celinayaa waxyaabaha ghayru mashruuca ah ee caalamul islaami aad ku arkayso waxa kamida arrimahan soo socda ziyaratu Xuseyn in Xuseyn la soo booqdo oo axaadiis mawduuc ah oo aan jirin loo alifay oo kala nooc siyaabo kala duwan u dhiiri gelinaysa qabriga Xuseyn mastar ku yaala in la soo booqdo wax daliilo ku soo arooray ma jiro waa wada mawduuc iyo wax la alifay hadalladaas waxa kamida waxa loo yaqaan salaatul alfiyya 100 rak'ah yuqra fi kulli rak'atin 10 min surati al-ikhlas waa boqor ragcadood oo la tukanayo ragcad walba waxa lagu akhriyaa 10 qul huwa leh marka tirada faraha badan bay soo baxaysa marka salaatul alfiyya loo yaqaan waxa kamida takhsiisu hadii layla biqiyam wa bi asiyam fi nahariha maalin habeenka bisho ay kala badan tahay in la yiraahdo cibaado badan baa la sameeyaa salaadaha la kordhinaya qofku wixii caadiga ah wax ka badan hada ghayru mashruuc taasina ma banaana maalintiina soom baa lagu daraya dhul wadamada qaar kood hadaad tagta aad bay ugu badantay waxa afraad iyaduna bidca kamida shayga loo yaqaan salaatu raqaay salaad magaca loo bixiyo 6 ragcadooda waa ka imaam an-nawawi rahimahullah kutubtiisa fiqiga iyo kuwa kaleba ayaa waxa uu leeyahay salaatu raqaay bid'atun munkaratun qabiiha wa bid'a aad xun oo aan daliil lahayn waxa kamida waxyaabaha qaladka ah in dadka qaar kood ay aaminsan yihiin annaha laylatul mubaaraka fil qur'aan habeenka barakaysan ilaahay quraanka uu ku sheegay inuu leeyahay laylatun nisfi min sha'baan wa habeenkii culimadu ay isku waafaqsanaan inuu yahay laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatin mubaaraka ayay ku fasirayaan laylatan nisfi min sha'baan marka waxyaabahaasina waa waxyaabo bidcooyina bidcaduna waxa weeye qofkiyo wixii diin ahaan u sameeya daliilna aanu haynin waxba dambi baa marka looga qoraya isagoo dadaalay ayuu noqonayaa caamilatun naasiba wuu dadaalay laakiin wuu iska daalayun dambina wuu ku dhacay cadaabna waa lagu abaal marinaya hadduu ka toobad keeni waayo marka hada mashruuc hada ghayru mashruuc waxaynu baraarujinaynaa waa inta horeynu soo sheegnay ee la sameeynaya daliilka loo hayo intaasina waa bilaa daliilo waa in la iska daayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu camalka iyo cibaadada inaga aqbalo cadiyadiisana uu inoo badiyo aakhira iyo adduunyadaba cisiyo sharafna uu ina siiyo cadaabkiisana inaga badbaadiyo jannadiisana uu inagu casuumo